kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha sida tooska ah hawada nagala socda waa barnaamijkeena Saarag hadda barnaamijka Saarag waxa idin socodsiisa anigoo ah Raxmaan Umar Carab barnaamijkeena Saarag wuxuu si toos ah toddobaadkii mar uga baxaa Bidaan Media haddaba daawadayaal toddobaadkan barnaamijkeena wuxuu inooga imaanayaa magaalada Buuhoole ee gobolka Cayn maanta barnaamijkeega ayaa igu martiya waa kuma Cabdullaahi Jaamac Bire Cabdullaahi Jaamac Bire dhalinyaro ku nool magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn dugsiga hoose dugsi dhexe ilaa dugsiga waxaan ku soo qaatay isla magaalada Buuhoole shaxda iskool oo sanadka foofoor ahay waxaan ka mid ahay dhalinyarada filmaanta duubtay ee ku nool magaalada Buuhoole kaasi waa Cabdullaahi Jaamac Bire sidoo ka dhawaajiyay waa arday dhalinyaro oo ku nool magaalada Buuhoole Cabdullaahi waa wiil jilaaya wuxuu ka mid yahay jilaayasha reer Buuhoole ugu caansan ama la yaqaan inta badan markii ugu horeysay maxaa kugu kalifay inaad wax jisho ama muxuu ahaa fikirka ugu horeeyay ee aad ku keento jilinka yaraanteed waxaan iska jecel mushashada ka soo dhex muuqdo walow markaan soo daawado filmaanta hindida aad aan waxaan u daawan jiray filmaanta hindida ama fan barojka markaan soo daawado habeenkii ama barqadii anigoo inta actor ku sameeyay jiray iyaakan isku xaafadana habeenadii kadib waxay ila soo qodmootay fikir ah anoo arday ah inaan isku dabalo dhinaca kale ka soo dhex muuqdo oo filmaan sameeyo anoo waliba waxbarashadeeda wada Cabdullaahi dabcan waxaad ka dhawaajisay inaad tahay arday waliba ku jira semifinalkii galaaskii ugu dambeeyay dugsiga sare sidee waqtigu kugu saamaxay ama sidee ugu heshay waqti inaad marna film duubtid marna aad wax barisid inkastoo yar tahay waqtiga hadda maalintii wax la bartaa ay badan tahay sidee u heshay waqti inaad wax ku duubtid Cabdullaahi yaase garabkaas siiyay ama yaad garab buuxa ka heshaa markaad filmaanta duubasid runtii waa su'aal aad u fiican marka waxbarashada iyo dhankan duubista la isku wadi karo balse fikir ah waxaan isticmaalaa markii aan waxbarashada ka soo baxo bacda duhurkii ilaa inta duhurkii casarka u dhaxayso inaan filmaanta aan duubo oo waliba attack dheer saaro waxay caqabadaha hortaagan keenaa inaan iskuulkii mar u gooyo si aan uga maradhariyahanigan iyo dhex guuhaya iyo mararka fasaxa iskuulku leeyahay iyo inta duhurkii waqtiga uu masbax jacburiya waad mahadsan tahay Cabdullaahi waxaad ka dhawaajisay in aad waqtiga chance weydo kale aad iskuulka u jirtid si aad u rumaysid hamigaaga sidee kula tahay adiga hamigan kugu jira iyo waxbarashadaada waxaad ka dhawaajisay inaad marka aad chance u weydid inaad wax duubtid in aad u jirtid iskuulkaaga ama waqtiga iskuulka bal aad ka siisid haddaba Cabdullaahi sida aynu wada ognahay waxbarashadu waa meelaha ugu sareeya ama wahamiyada inta badan aan dhamaan waxbarashaduna waa wax aan dhamaad lahayn waana halka nolosha bini'aadamku ka bilowdo kuna dhamaato hamigaaga adigu oo tixgelinaya miyaad jeceshahay inaad ku seegtid waxbarashadaada mise hamigaaga ayaad mar walba tixgelisaa oo waxbarashada waa dambaysiisaa labadooda kee tartan ahaan kee soo saaran lahayd inaad hamigaaga soo wallahi labada aad sheegtay waa laba aan laga maarmi karin oo aad u muhiim ah balse waqtiyada qaar waxayna meeraysa la ciyaaraa dhinaca waxbarashada oo tixgelinaya hamigayga Cabdullaahi waxaad tiri waxaan targetkayga saartaa jilidayda haddaba Cabdullaahi filmkii kugu horeeyay ama wixii kugu horeeyay ee aad soo saartid kilib ha ahaadee oo aad hadda oran kartid saameyn buu ugu lahaa ilaa la bilaabaa waxay leedahay dhibteeda iyo saameynteeda haddaba wixii kugu horeeyay aad ku bilowdid qof walba markuu wax bilaabay uu dareemi karaa dhibta ay leedahay wixii kugu horeeyay aad ku bilowdid ama fiilkii ugu horeeyay kugu bilowdid yaa kugu caawiyay ama kula garab galay markaad sida aad ka dhawaajisay waxaad ahayd arday dugsi ku jira marka ayaa ku caawiyay oo garab buuxaad ka haysatay runtii Raxmo waa su'aal aan aad u xiiseynaa inay weydiisid oo aan jeclaa marka ay wax qabanaysid ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan caqabad aad u far badan baa ka hor imaanaya caqabadihii horyimi anoo meel aan wax ka bilaabo la baa waxa dunida ku soo biirtay ama Soomaaliya internet ku soo biirtay aalad TikTok oo ah clip oo 30 iska duubisid oo waxba ku fuudanaya kadib aalad TikTok ah baan isticmaalay anoo aalad TikTok ah ay waxyaabo badan oo hamiyay ah iga dabartay ama iga jooga caawisay baa waxa kale aan garab ka helay Maxamed Axmed Jaamac Bidaanshe oo kamid ah haweenada Bidaan Media oo isaguna warbixinada duubay soo saaray marka waxaan haystaa anigu waxaan aaminsanahay fikir ah Cabdullaahi maadaama Cabdullaahi
sida aad ka dhawaajisay noo sheegtay inaad aalada TikTok-ta kusoo baxday markii ugu horeysay ama aad fiidiyoyada ugu horeysay lagu bartaa TikTok soo gelisay oo hamigaaga koobaad TikTok ku rumaysay maxaa kalifay inaad ka wareegtid aaladaad kaga madhalisay markii ugu horeysay guushaada ama aad ku ogaatay inaad tahay ruux guuleysan kara oo aad ka wareegtid dhanka TikTok-ka adigoo u wareega inaad jishid filmaanta kana guura TikTok raxma hamiga ku tayaskaan TikTok-ta uu ka weyn yahay saan hore kugu sheegay aniga hamiga TikTok-na wuxuu ahaa filmaan aalada TikTok-ta way iga caawisay ka aad ugu macniya TikTok-ta waan dareemaysaa marka wax la bilaabayo inaan xagga sare laga bilaabo xagga hoose laga soo bilaabo marka TikTok-ta waxay ahayd jaranjaradii hoose aan ku soo istaagay sida Cabdilaahi dadku arkeen ama daawadeen ba laba filim ee ugu horeeyay uguna saameynta badnaa waxaad ku bilowday alaad iyo nabad haddaba maxaa sababay inaad dooratid olaada iyo nabadda markaas way raxwa saa sheegtay labada film ee ka dhawaajisay runtii Soomaalida waxa dhameeyay ama inta ka soo reebay waa olaad waliba olaad sheema waa olaad sokeeya iyaga dhexdooda ah maadaama filmka uu horeeyaa waana olaad waxaan tusaynay Soomaalida inay olaad dhibaatada ay leedahay oo kan la dilaya uu yahay inaayarka kan adlis wiilka abtigu ahayd habeen aba baqaya wiilka ayaa dilis kadib marxaladii markaan bulshada u soo bandhignay olaaduna dhibaatada leedahay waxaan ku xigsinay nabadu naxariista iyo nabadgelyada ay leedahay Cabdilaahi waxaad kala waajisay waxa tahay filim soo saare haddaba film marka la bilaabayo sida aynu wada ognahayba wuxuu u baahan yahay jilaac wuxuu u baahan yahay director wuxuu u baahan yahay maalgeliye filimka markaa soo baxaya adiga shakhsi ahaan marka filmaanta soo saartay yaa ku maalgeliyay ama yaa kala shaqeeyay oo hawlaha kula qaban jiray aniga waxa weeyaan inaan soo saaro film waa ogtahay oo ma yarasa loo soo saaro caalamka aad shirkadda bulshada way maalgelisaa filmka khariib waa ku baxa intaasoo kaamirada waxaana soo koobiyaa ku baxa laakiin aniga filmaanteeda director iyo kharash iyo maalgeliye iyo jilis waxaba ilaa cameraman ana iska caawiyay iga caawisa ma jirto koox dhalinyaro aad uga mahadcelinayo oo aan la'aantooda ka soo fadhiisan lahayn kooxaas uunba iga caawisay inay ila jisho filmaanta waxay u kalifayeen olaad ka jirtay deegaanka oo xurguf yar ahayd kadib oo nabad isku dibashay nabadda macaankeeda waan la dhaminay kadib olaada qaraarkeeda waan soo dhaminay kadib waxaa ila suurta gashay inaan bal bulshada tuso olaada aan dhaminay olaada qaraarkeeda aan dhaminay iyo nabadda aan macaankeeda dhaminay labada mid ka wacan waayahay Cabdilaahi buuqodle ayaad ku sugnayd markaad soo gelinisay kilibkaas waxaadna uu ahaa kilibkaasi kilib ka hadlaya qaraarka ama xumaanta ay leedahay dagaalka sokeeye مين سامين كويران أديك جدهاجة أما الشخصية هذا مين سامين كويران بسميها ضد كديجان كمية واحد أكشن سؤالين وحمان هذا كلا كل من أنا هو إن الديجان كأولاد كتشتو يجوا واحد درسين أنا أندرسنا هاي بس سخدنا يوفشان أو ظهورين أفضل بفيلم كداولي أما داون وفهمية وقرار كأولاد ولا إن لا يحليه إن أولاد ظهورين أهان marka filmkaas waaqiciisu wuxuu ahaa nabad Cabdilaahi fiidiyoyada waxaan leenahay filmaanta hada aad soo gelisid inta badan ama aad soo samaysid waa filmaan soo jiidasho leh ama marka la yiraahdo duubistooda aad u fiican tahay yaa ka duuba ama yaa garab kugu siiya inaad fiidiyoyada noocan ku sameeyo oo ku duuba hadii aad tiri kiligay ba isku qabto hawsho dhan waa raxmo horta dhanka duubista qof iga caawiyo ma jiro duubitaan editing ba mobilka ku duubtaa kuna edit gareeya laakiin se intaan uu wajiga ka soo dhex muuqanayo facekayga waan qof lahaa mobilka qabo laakiin qof iga caawiyo ma jirto duubis noqoto iyo hadii director noqoto iyo hadii edit noqoto waxaba shaqada wuxuu dhanaan soo qabta laga reebo intaan ka soo dhex muuqanayo oo aan marba qofkaan helo ku dhaho mobilka saa ugu toosin intaad sheegtay waa shaqo dadyo badan loo dhiibo ama ay qabtaan haddaba sidee kaliya adoo hal shakhsi ah kuugu suurta gashay inaad qabatid hawshan taaleeg wallahi raxmaan walaal waa caqabado aad u fara badan oo aan yareen wax la duubayna waa film muuqaal maaha oo la mid maaha sidii muuqaalka loo duubiyay marka uu ku duban yahay sida loo duubayo
marka waxaan uga maalin waayey qof la wada hawshan oo keliya ku dhawr adeega cabdilaahi horta wax walba oo bilaadankan koonka ku nool ay bilaabaan waxay u yeelaan bartaargad ama meel dhamaad u ah ma jirtaa jilidaada ama hamigaagan jilid meel aad isleedahay aad kaga midhodhalisid ama aad halkaa tagsid oo aad halkaa ku joojisid oo aad wax kala bilaabatid markaas mise cabdilaahi hamigaaga waxaad ku koobtay filimaan quriyaata waa raxma horta bar ii tilmaamsan oo isleeyahay ku jooji ma jirto hamigeyga ilaa heer aan ka gaadho oo aan sii wadayaan laakiin bar hadda ku dhihi karo waa ku joojin karaa ma jirto haddaan usoo laabto su-aashaada kale ee ah hamigaaga maxaa kusoo koobtay film horta may anigu horta hamiyaal aada u fara badan waan soo yeeshay hadday fanka iyo hadday tahay dhinaca saxaafadda iyo hadday tahay dhinaca siyaasadda intaba anigu waan soo yeeshay waqti waxaan xasuustaa anoo aada u yar aabbahay waqti waxaan xasuustaa anoo aada u yar aabbahay ilaahu naxariistay oo anigiyo mid aan walaalnahay iga weyn oo aan ka salaamayo meesha la dhaho isku kala yeedhay uu yidhi aduu maxaad jecesha doonaysaa inaad noqotid aan anigu yidhi weriye isla kuwi maxaad doonaysaa inaad noqotid uu yidhi waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweyne kadib intaa ka dambeysay hamigeygu saxaafaddu halkaasuu ku go-ay oo madaxweynihii baa haddana fuulay kadib markaan soo waday isna ii suurtageli waaya dhinaca fankan isagu u leexo dhinacii fankana haddana waa ka wareegay oo dhinacan waqti xaadirkan waxaan doonayaa hadda inaan aada uga mardhaliyo oo aan wixii kale oo soo xiray dhinaca barjista waa su-aasha ugu dambeysay fariinta ugu dambeysa ama yaad halkan fariin uga dirasaa oo fariinta ugu dambeysa aad gaarsiinaysaa horta dhalinyaro nahay marka hamigeyga horta waxa weeyaan aan filmaan sameyno filimka ma yara balse qalabkii ma hayno oo saan kuu sheegay mobil baan ku doonaa marka waxaan codsanaynaa qurba joogta iyo cid walba fariinteedu gaadho in ay naga soo dabaraan dhinaca qalabka waxaanan soo saari doonaa filmaan aan bollywoodka laga sameyn hay-ad daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena is arag oo si toosa idinka soo gudbinaya magaalada buuhoodle barnaamijkayga maanta waxaa inoogu marti ahaa cabdilaahi jaamac bire oo ah mid ka mid ah dhalinyarada magaalada buuhoodle ahna filim soo saare barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah raxmo umar carab dhanka farsamada waxaa inoo jooga injineerka agaasimaha bidaan media maxamed axmed jaamac barnaamijka xiga intaynu ku kulmin doono daawadayaal waxaan idin leenahay nala socdo oo hanaga daarina